أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu ku dhex jirnaa bidaayadii tafsiirka qur-aanka kariimka ah annagoo ku bilownay qiraa'atul qur'aan fadiilada uu iska leeyahay, barashadiisa iyo baridiisa fadiilada iska leedahay oo dhowr cashar aynu ku soo qaadanay. halkan waxaanu ka bilaabaynaa casharkii shanaad oo aan uga hadli doono fi taxdiiri ahli lqur'aani waalcilmi min alriyaa'i wa gayrih. dadka ahlulqur'aanka oo qur-aanka ilaahay bartay oo akhrinaya iyo cilmiga in loogaga digo, istustus looga digo, in aynan noqonin waxay akhriyayaan wax alla loola jeedo oo ay noqdaan wax ilaahay keyrkiis loola jeedo, ha lagu maqlo iyo ha lagaa sheego iyo arrimahaasoo kaleentood inay arrintoodu noqoto ayaa loogaga digayaa. maxaa yeele waxay noqonaysaa arrintaasu noocun min ashirki weeye, nooc shirkiga kamida weeye. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka digay shirkulgaas layidhaha shirkul asqarka. marka nabiga markii la weydiina alriyaa fil acmaali u dhahay shirkiga shirkul asqarka ah oo ummadan aakhiru zamanka u badnaa doona waxaa weeye markaasi alriyaa fil acmaal, acmaasha la isku tususo. qof walba camalka uu qabanayo waxaa loo baahan yahay dar ilaahay inuu u qabto oo alla subxaanahu wa tacaala uu ula jeedo, cid kaleentood uusan uga heybeysanin, maadaama camalku uu yahay mid alla loo sameeyo subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo dadka ku boorinaya in isaga la caabudo kaliya, waxna aan cibaadada lala wadaajin, waxa uu dhahay alla wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-a. ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala oo alla waxida, ilaahayna waxa garab dhigina oo shay ilaahay ha ula shariig yeelina. macnaha markii cibaadada ilaahay la isfaray oo amar ay tahay, waxaa ka daba yimiday nahyi la iska reebayo cibaadadaas alla la caabudayo oo markaasi xaqa nagu ah in markaasi cibaadadaas wax aan la soo dhex gelin oo aan alla keyrkiisa aan markaasi qeyb laga siinin. cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh. marka acmaasha oo la isku tustusiyane waxay noqonaysaa markaasi ilaahay keyrkiis in lala wadaajiyo ayay noqonaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kalou dhahay faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. qofkii ilaahay la kulankiisa maalinta qiyaamo uu la kulmaayo rajaynaayo amba ka baqaaya, camal wanaagsan ha sameeyo ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala. rabbigiisane axad yowsan ula shariig yeelin oo cibaadadaas alla uu caabudayo ilaahay keyrkiisa yowsan wax ka siinin. marka cibaadada waxaa la rabaa alla subxaanahu wa tacaala in loo khaliso. gaar ahaan hadda waxaanu ka hadlaynaa oonu ku dhex jirnaa tafsiirkii qur-aanka kariimka ahay, qiradii qur-aanka la akrinayay. arrintaas waxaa weeye inaysan kaa soo dhex gelin wax markaasi nooc oo markaasi shirki aysan kaa soo gelin. haddaad masalan ba aad is tiraahdo hadda dad baa ku maqlaaya qur-aanka horta sawdka in lagu qurxiya waa la rabaa, laakiin markaas aad ku qurxinayso waa inaad ilaahay qur-aankiisa aad ziinayso inay kaa tahay. laakiin dadaa ku maqlaaya codkaaga ha maqlaano iyo axsanu sawd weeye ha lagu yidhaahdo iyo
wax yaroo intaas hadday ku soo galaan waxba ajira lagaa sii maayo wax faa'iidaana ka heli maysid qur-aankii fadiilada badnaay oonu casharadeena hore aanu ku soo qaadanay cilmigii la akhrinaayay oo hadda qur-aanka u weyn yahana sidoo kale weeye waxaanu soo qaadanaynaa haddaba xadiis dheer oo markaasi imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey saxaabiga jaliilka oo abi hurayre la yidhaahne nabiga calayhi salaatu salaam uu ka wariyey waxau dhahay abu hurayra samictu rasuulallahi sala allahu calayhi wasalama yaquul ina awala annaasi yuqlaa calayhi yowma alqiyaamati rajulun istushhida fautiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa qaal famaa camilta fiiha qaal qaataltu fiika xata istushhidtu qaala kadabta walaakinaka qaatalta liyuqaala jarii'un faqad qiila suma umira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaari camalka aan ilaahay daraaddiis loola jeedin qiyaamo in markaasi cadaab lagu gelaayo xadiiskan ayaa qaybo badan nabigu calayhi salaatu wasalaam noogugu sheegayaa rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina awala naasi dadka kan ugu horeeya oo yuqlaa calayhi la xugminaayo yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda rajulun nin weeye maalinta qiyaamo waxa ugu horeeya oo la xugminaayo waa ninow dhahay istushhida laga shahiid yeelay waxa uu ka mid yahay ninkaanu dadka la xugminaayo kuwa ugu horeeya ayuu ka mid yahay ee waxyaabo ka horeeya ayaa jiro xadiis soo aroorayaa jiro dimaa'da ayaa la xugminayaa dhiigga markaasi la iska galay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye waa nin ayuu dhahay istushhida laga shahiid yeelay oo macrakadii kufaarta ku dhintay oo jihaadka ku dhintay fa utiya bihi ninkaas waa la keenayaa waxaa la keenayaa maxsharka qiyaamada ayaa la keenayaa meeshaas ayaa lagu faleexaynayaa maxaa yeele jihaadkiisu ma uusan ahaynin liiclaa'i kelimatillaahi ma uusan ahaynin jihaadkuna mar hadda uusan ahaynin liiclaa'i kelimatillaahi waxuu taraayo ma jirto facarafahu nicamahu ilaahay nicmooyinkiisau gargaransiinayaa waxa ilaahay nicmo uu siiyey ayaa la gargaransiinayaahoo waxaa weeye markaasi waxaas ma garanaysaa waxaasan kugu nicmeeyey ayaa alla leeyahay subxaanahu watacaala facarafaha dibidna waa garanayaa qaala markaas alla wuxuu leeyahay famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay nicmadaas maxaad ku camal fashay saad u samaysay oo camalkaasu see kaa ahay markaas rasuulku waxau dhahay wuxuu leeyahay qaataltu fiika xata istushhidtu ilaahow waa dagaalamay oo jihaad ayaan galay ilaa aan ka shahiidoobo adiga daraaddaa ayaana u dagaalamay ayuu leeyahay bani aadanka waxaa weeye sida adduunyada oo beenta uu sheegaayo ayuu qiyaamo hadduu tagana beenta u sheegayaa laakiin qiyaamo markuu tago beentu waxba u tari mayso qaala alla markaas wuxuu leeyahay kadabta waad ku been sheegtay markaad leedid qaataltu fiika xata istushhidtu been baad ku sheegtay walaakinaka hase yeeshee qaatalta waad dagaalantay liyuqaala in la yidhaahdo dadku ay ku dhahaan jarii'un waa mid dhiiran oo geesinimo badan nin geesiya weeye sooma jeesta weeye si lagu dhaho faqad qiila waana lagu dhahay horeyaa lagu yidhi arrintaas suma umira bihi waa la amrayaa markaasi in markaasi waxa weeye la qabto ayaa la amrayaa fa suxiba calaa wajhi wejigiisa ayaa dhulka loogu jiidayaa xataa ulqiya fi naari owdha rasuulku ilaa naarta looga tuuro sigu ihaano ah oo faalxumo ah ayaa waxa weeye malaa'igta zabaaniyada ayaa waxlaha la amrayaa inay qabtaan oy markaasi si ihaano ah wejiga dhulka ugu jiidaan ilaa naarta loogaga tuuro waa jihaadkii oo markaasi acmaasha kuwii ugu fadliga badnaay ah ayaa haddaan dar ilaahay loo samaynin cadaabkaas ayaa lagu gelayaa wuxuu mar haddaysan dar alla ahayne cid waxba ku dheefaysaahay ma jirto saasuu marka ahlu naar ku noqday midka kale wa rajulu nin weeye u dha rasuulku calayhi salaatu wasalaam tacallama alcilma cilmiga bartay waa qof cilmiga bartay oo culumta islaamka bartay oo ku dadaalay
وعلمه dadkana barbaray tan waxay haysaa culumada ayay haysaa culumadu waxay sheegayaan ilaahay daraadiisa hadaysan ka ahayn waxba ku dheefi maayaan maalinta qiyaamo xujay ku noqonaysaa magac ka hel iyo maartay lagugu maamuuso iyo waxa weeye sumcad ku yeelo qofku ay ka tahay waxba ka gaari maayo makhluuqaas ilaahay xaqiisa wuxuu ka helaayna way ka lumayaan وقرأ القرآن قرآن كأخري مادام هذا قرآن كأن أخرينه وأنوع عسوي قرآن كبو أخري فأتي به سجن ولا كينيا وعلى سوق بنا محشر خلائق ذي أو مركز ضيسة أيا الوف الله حينيا معايا لو حمرها دوسان در إلهي أقبنين أو مخلوق هكو أجاد هكاشة كيو مارتي هكو احترام هكو وينيو هدي أي كهذي ضدك السداس أو هيا هرتو إلهي كف الله حينيا ولود لينيا ولا كان هؤلاء رسولك عليه الصلاة والسلام فعرفه نعمه إلهي نعموين كيس أيو قرقرسينيا معايا للنعمة إلهي ونبوينتهي عدكس النعمة إلهي وكوينت لما سوكو بكرو وطوله إلهي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة إلهي هديئة ترسان مكو بكريسان فعرفها دي واقرنيا مركاسا الله وحوليها فما عملت فيها نعمة داس محاتكو عمل فشي علمي اللي وسيي قرآن كل وسيي عافمات كل وسيي وحي اللي وسيي محاتكو عمل فشي سيدوغو عمل فشي قال مركز حوليها تعلمت العلم إلهي وعلمي وابرتي وعلمته ضدكنا وابربري او ضدكنا علمي قبران هاي وقرأت وان أخري فيك لأجلك أذيك الدراد هذا القرآن قرآن كانوا أخري قرآن كان أذيك الدراد أيان أخري ساسو ليه قال إلهي مركز كذبت واتكو بين شاكتي كاذب آياته بين لو آياته ولكنك أذوق تعلمت العلم علمك واد برتي علمك ليقال إن لو يراد عالم وي حديث كان مركز هذا قيب تانو تدك علماء أيا مركز ku jahaysan علمك hadii la baranayo waxa la rabaa dar ilaahi in loo barto amal kasto oo la sameeynayo dar alla in loo sameeyo ayaa la doonayaa markaas wuxuu leeyahay cilmigan bartay dadkana waan baray quraanka daraada ahaan u akhriyay ayuu leeyahay ilaahi markaas beenad ku sheegaysa uu leeyahay معايا الله عالم وكيها عدك الصوحي سمينيسو واتوده إلهي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قفل بإلهي ياك ورقة سبحانه وتعالى الدنيا ذا نوالك تقايا مركا انت ضد وحكرها هذه ما قيسو إلهي غير كيسة أهد وحكرها هذه ما قيسو يا إن مركا سي خسارة يهوق أضوء الدنيا ذا نبطوها هذا خسارة قيامة يسوكو إيمان مركا سو إلهي وحوليها علمك واد برتي سلوه عالم وي وقرأت القرآن كواد أخرسي ليقال هو قارئ سلوه هو مد قارئ هو قرآن بدن عضوانا أكسنا قرآن كأخري أوغا ساس أها وذات كانوا جلاد لو رواية سبع أو أخرياء وحساس وي وحس إنه يراه قفك وحس دونا إلهي حقوقه هيلي مايو وح إلهي أوكهلا مجرد أو يراته قيامنا السيدان أيو مركزو عذابه متيسانيا فقد قيل وانا لو دحي او ساس الى اساس دونيسي وانا لو دحي باشا حبكو ما يالنا لي ثم امر به ولا امر يا مركز ان يصحب ان مركز لجيدو او لا اهانيو فصحب على وجهه ايا دولك لوغو جيدايا حتى القي في النار يا رسولك الى النار تلوغا طور كاسون halkaasoo ku baxay cilmigiisi iyo quraankiisi waxba kuma uusan dheefin hal laga sheego saasay dhibaatadaas ay leedahay iyo maqal yeelo iyo maqaya maamuus iyo qadarin hal lagu siiyo iyo mar haday intaas ka soo gasho Allah ku aruusho midka kalentood waxa Ilaahay ku siiyay subhanahu wa ta'ala oo nicmadiisa waxa kamida markaas maalka kamida waxa rasuulku markaas warajulu nin weeyo dhahay Ilaahay ka kalana ورجل نوي وسع الله عليه إلهي واسعي نين كان قف والبا ميل با مارتي إلهي سبحانه وتعالى نعمديس وينته لكن نعمداس هدان در الله مركاس لوغو عمل فلين وحبا فائده كيني ميسو نين وا يا رسولك عليه الصلاه والسلام إلهي واسعي مالك
وأعداه من أصناف المال كله مال كالنوع ياشي صنم أيال السي عولك السالسي فأتي به سجن ولا كينا يا فعرفه نعمه إلهي النعموين كيسو قرقران سينا يا نعمة سيداس والله الماما يا فعرف هذه النواة قرنا يا اعتراف يا قال مركز إلهي حولي فما عملت فيها نعمة سمحاتك أو عمل فش در إلهي حولها ما أبحسي أو إخلاص مكاي هذا واحد بحنيسي بس أخوات كفانيسو هلا قاش آيات ديسي إن كانوا ديقسي ويلو له مركز حولي هاي ما تركت فيها من سبيل إلهي يو كم تجين وضاء جعشة إن وحلو بحشو أو تحب أن ينفق فيها وضاء جعشة إن وحلو بحي أو أن كتج مجرت إلا أنفقت فيها لك هذه الدرات ده هم حقوق بحي هذه الدرات ده أيام حقوق بحي وضاء أو خير لو بحشو مجرته أو أنا وحقوق بحي وليه مساجد وادسي دوسياش قرآن كوادسي مساكين تواقودي وحكا سوا سميي ساسو دهايا إلهي مركز عليه كذبت وادكو بين شيكتي بين بات شيغيسا ولكنك فعلت واد فشارين تاس ليقال إلا يرادو هو جواد ومد يغسن مبضا وانين ديغسن مبضا وانين قعان فران وانين فلان سلقوده فقد قيل وانا لقودهاي وواحد ربطي الدنيا كسو قادتي waxaa waa hormarsataa la leeyahay faanki iyo waxaas laga sheego ilaahay xaqiisa lama bixin suma umura bihi asnawal amraya an yushaba illa jiido oo la ihaaneeyo fasuhiba ala wajhi wajigiisa ayaa lagu jiidaa rasuulku hatta ulqiya fi naarta inta looga tuuraayo waa arin yaab la weeyay wax kasta oo ilaahay nicmadiisa oo diin iyo adduunyaa oon dar alla aanan ahayn sidaasay noqonayaan cid kasta oo maartay dan raadsiya waxa weeye sidaas ayaa marka arinteedu noqonaysa acmaasha ilaahay daraadiisa waa in loo qabto saasay markaasay khayr ku leedahay qiyaamo waxa sameeysoona waa laga siiba naarna waa lagu gelinayaa marka waxa weeye cinwaanka wuxuu noo ahay in dadka ahlul quraanka iyo cilmiga looga gadiso استوستوس يا غير كيسة وهاي الرؤية يا سمعة يا لهلقوا مغلق يا وحا صوكله إمام الترمذي وحاول أو أصنع حديث كان وحكوري وحاول رسولك عليه الصلاة والسلام وحاول يلو ده أبي هريرة مركاسي أصغوا مركاسي مارتي النبي الله جرى وحاول يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر به من النار هذا أنت أنصار شيخني سدح دي هذا مارت يا لقى صور رمي أيها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رواية ترمذي ليه ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه أبو هريرة على ركبتي جلبهي أيها النبي ساس أجر جراع أو رفتي معناها أسوء براروجناي مركز هو ده يوري يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر به من نار يوم القيامة سد حداث لغا صور رمي وخلق إلهي كوا أقوه الرأي أو نار تمال انت قيام لغوه ردون قارق يا كجرة عالم كبا كجرة مجاهد كيا كجرة ننك غنيها يا كجرة انت أسنوا انت مركاسي أقو صرهيسي أعماشه أو أقو خير كبضنا يدي لكن هو مركي در إلهي لو لجي ذوين مركا أبو هريرة رسولك وعو كدهي سد حداث خلق إلهي كوا أقوه الرأي أو مالين تقيام النار تلوه هرناي ويحابض الله قد شيخ الإرادة ابن عبد البر وحاول حديث كان وحالو لجي ذا في من لم يريد بعمله وعلمه وجه الله تعالى وهو كور هما يا هو قف كان عمل كيسة يا علم كيسة در إلهي أولى جيدي أيام مالين تقيا مصاص أي قبصيسة اللهم نجنا وحوية مركة وإلا الدكتون هذا هذا قبيس إناد في رساوي شيطان كنو حو كتصايا وحيابها صودا إناد وحكور هاد ستو أيو كتصايا مركة أرنتها صلى إسكا إلاليو
حديث كلو أسقنا حديث كإسلام صحيح مسلم وأبو هريرة وري وحول رسولك عليه الصلاة والسلام من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار قفك علمك الضلبة إلهي درتي سناء ودربينه إلهي غيرك سو ضلبة الدنيا كدونا يا سمعكو يلو إسليهي جاكو يلو إسليهي وحان مركاسي وحوي ومد إلهي وقفا إيدي ومارتي أدون أجر كهل كما أهن أو أراد به غير الله أما إلهي غيرك أوذ شك من الرأوي إلهي غيرك سؤول الجيدة فليتبوأها كالديار صدو مقعده ماشو فريس لها من النار نارتها كالديار صدو نارا سوغيسه ماشي نارتا وكفريس لها هاو ديارسها كالديار صدو رسولك عليه الصلاة والسلام marka hadda cilmigi barashadiisa iyo quraanki iyo acmaashi waxay rabtaa ikhlaas ay doonaysaa waxaan ikhlaas lahaynin waxba tari maayo waxa la rabaa marka in ilaahay daraadiisa wax loo barto oo wax loo baro ayaa loo baahan yahay ilaahay asaana kaafiya subhanahu wa ta'ala dad adduunyatiisa waxba uu tari mayso kaydka ilaahay khasnada ilaahay ayaan ugu filan qofkii dar alla wax u sameeyana ilaahay subhanahu wa ta'ala asaa kaafinaya waa ina alla ku kaaftoonta ibn al-mubarak abdullah ibn mubarak oo caalim weyn ahayo taabiciinta kitaabkiisa oo leeyahay raqaa'iq ayuu wuxuu ka wariyay sayyid abbas ibn abd al-muttalib waxa dhahay oo sayyid abbas nabiga ka wariyay waxa rasuulku alayhi salatu wasalam يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار دين كان ظاهر دونا كر أيو آدي دونا مجي عيسى كر نقد دونا إلى بدها أو كجود بايو وحتى تخال البحار إلى بدها لقى مخورنا أيوه أو بدها إن لقى جود رسالة ده إيه الدعوة ده لولا فوق لجارسينا وأنا لجارسيو وقت الإسلام كم يلفق أيو إسلام هو جاري oo waxa weeye dhulalkaas xataa wuxuu gaaray maartay Yurub taasoo gaaray Spain iyo maartay Portugal iyo aradaas waa la ogyahay taariikhda waqtigii Cusmaaniyiinta iyo waqtiyaal badan ayuu diintu gaartay iyo xaggaas iyo maartay Faris iyo dhulalkaas marka waxa tukhadal bihari wada bil khayr fi sabilillah tabaaraka wa ta'ala farda halkaas la galo waa midalan doomankii oo kale oo islaamku meel walba uu gaari doonaa rasuulka kaleey salaam diintaanu meel bay gaaraysaa hatta yaati aqwaamun yaqra'una alqur'aana waa sida hadda maanta aakhir zamaanka oo la joogo maxaa yeelay dadka hore dad mujaahidiin ah oo islaamka meel walba la aadaay badaha ka gudbaaya meel kasta tagaaya dacwada fidinaaya ayay ahaayeen laakiin waxa iimaan u dhaay aqwaam qoomyaalo yaqra'una alqur'aana quraanka akhrinaaya فإذا قرأوه مركي أخريان قالوا حيليهن من أقرأ منا يا نجا قراء بدن يا نجا قرآن بدن من أعلم منا يا نجا علم بدن ساسيليهن مركي ساسو رسولك عليه أصحابتي سيوم العصري مركي صور هاي هل ترون في أولئكم من خير قال هذا سيدا خير من ليه سين أو قرآن كي مركي سوى حوي كفاناي علمي كفاناي يا نجا wax badan dhahaaya ayagoon hadana diinti aan carra u tageeno wax nashrinayn laakiin ayagu aqoontoodii la cajabaaya qaalu marka asxaabteen la ma yeedheen markaasuna wuxuu dhahay ulaaika minkum kuwaas idinka mid yihiin hada waqtigaas ay ka mid ma laakiin dadka imaad doona way oo markaas aakhir zamanka imaad doona ulaaika min hadhihi ummati kuwaas ummadaanay ka mid yihiin wa ulaaika hum quudun naari kuwaasuna waa kuwa naarta lagu horinaayo maxaa yeelay amalkoodi aan dar ilaahay ahayn quraanki iyo markaas cilmigi iyo amalki wanaagsanay ayay ku faanayaan marka waa dad aad iyo aad maaratay u khariban way waxa maxallu shaydku wuxuu yahay waxoodan dar ilaahay ahayn dar alla waxaan ahayn oo dhan ayaa asaas lagu gaaraya asaas lagu noqonaya waxa kale markaas soo qaadanaynaa xadiis Abu Daawud oo wariyay iyo Tirmidhi
وصحابي الجليل كأبو هريرة لقوري سنة كيسنا وحسن يهي رسول كان وحور عليه الصلاة والسلام من تعلم علما نوده رسولك قفك علم بربرته مما يبتغى به وجه الله علم قاسو مما كي كمذا يبتغى به وجه الله إلهي اللي يسأل وضلبه إلى العلم قبر شديس علم داد بريسه الله إلهي بالوضلبه إلهي إنه كارها لنغضه قد إلهي سبحانه وتعالى مقام عند الله أتكو قارته أو أيال الله برتا علم مركاسي إلهي غير كيس الله ما برته مما يبتغى به وجه الله إلهي اللي هيسا وحل ورهات شاه لا يتعلمه حال أو سنؤبرين علم قاس إلا ليصيب به إنه كهلم وياني غرضا بربر أو من الدنيا علم قصيدي سبا برشديسو وحي كمتهاي وحا إلهي اللي هيسا الورهات marka ayadoo isaas tahay umma baranayo rasuulku kaleey salaam illa wax adduunyaa inuu ku helo mooyee wax yaro adduunyaa oo birbira lam yajid arafa aljannati oo rasuulku jannada udugeeda arkimaayo mal qiyaamada maalinteeda meelna waxa rasuulku waa in riixa la yujadu min masirati kada wa kada meel ayaa aheeday riixda jannadana waxa laga helaa intaas waxa weeye toddobaatan sano intii loo socdo ayaa riixda uduga jannada laga helaa meeshaas xataa jannada usoo gaari maayo sida jannada uga fog yahay naarta u gila waay haddana waxa weeye cilmiyo bartay laakiin cilmiga ayaan waxuusan ahaynin wax ilaahay subxaanahu wa ta'ala ula jeedo ma ahan oo rila ilaahay ku raadi maaye waxa rabaa inuu adduunyo ku helo rabaa waxaan adduunyada kaliya loola jeedo oo dar ilaahay loola jeedin oo dadku ha ku maqlaano ha ku maqlaano maarata ha ku arkaano waa laga shalaaya maalinta qiyaamo waxba yaan la isku oofaynin oo la isku dilin wuxuu hadaysan dar alla ahaynin yaan la isku daalinin makhluuqa wax looga raadaayana waxba looga heli maayo waxa laga helay ma jiro maxaa yeelay makhluuq wax uu haayaan ba jirinba asaaba dhaif wax uu haaya ma jirto marka hadda qaybti markaasi تحذير أهل القرآن مركز أولو قدقايا دادك قرآنك يقانا يا علمك حديثك مركز هذا أنو كسوق هذا نقايبت حديثك 10 كان شنات هل كاسونو اجي هاي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته